عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan insha Allah sii socodsiin doonaa barnaamijkeeni aan ugu magac daray Filaguush. barnaamijkaas oo aan ugu talagalay in laga faa'iideysto qof waliba oo doonaya in adduunkan magaciisa dhigto oo noqdo qof jira oo jooga. daba maanta waxaan ka hadlaa qofku inuu hadaf yeesho oo qof noqdo hadaf iyo adduunka yool oo adduunka la joogo. hadduna qofku yool iyo ujeedo lahayn adduunka wuxuu ku noqonayaa dheeraad, waxaana u dhaantaa inuu iska dhinto ayaa u dhaanta. waayo adduunka waxaa loo yimi waa hadafka haddii qofku dayacana dee dheeraad ayuu noqonaya. marka qofku waa inuu ahdaaf yeesho. ahdaaftaas haddii uu ahdaaf qofku adduunka intuu nool yahay uu ahdaaf leeyahay, ahdaaftaasi ama ha yaraato ama ha weynaatee wuxuu noqonayaa qof jira, ama qof walba suu hadafkiisa leegyahay ayuu jiritaankiisa iyo joogitaankiisuba leegyahay. waxaan maanta ka hadlanaa insha Allahu waxyaabaha aynu ku caawinaya hawshan aynu u balansanahay maanta. waxyaabaha aynu ku caawinaya waxa weeye oo qofku markuu doonayo inuu adduunkan kaga tago magac waara iyo muuqaal saameyn leh, markuu doonayo inuu kaga tago weyn au talaabooyin iyo waddo u raaco. ay wax waliba wadda ay leedahay. waddadu hadday kaa khaldanto dee adiga noloshaada dhan baa khaldamaysa. hadday waddadu kuu saxnaato noloshaada oo dhan ayaa saxmaysa. haddaba waxyaabaha ku caawinaya inaad hadaf yeelatid adduunkana noqotid qof guul ka gaara. waxaad samaynaysaa marka hore meel degan ayaad tegaysaa, waad fikiraysaa. marka hore waa inaad fikirtaa maxaa kuu wanaagsan maxaa kuu xun, waa inaad kala garataa. marka labaad waa inaad qaadataa go'aan adag, taas oo noloshaada oo dhan bedela. ta saddexaad samee ficil. go'aankii aad soo qaadatay haddaadan dabiqin dee waqtigu ma iska lumiso. waqtiga uun ayaa iska lumisay. qodobka afraad ee lagaga baahan waxaa ka mid ah inaad la saaxiibtid dad ahdaaftoodu sarsarayso oo yoolka iyo ujeeddada adduunka ka leeyihiin ay sarayso la saaxiib. ta shanaad waxay noqonaysaa ku dhiirigeli naftaada mar walba. ahdaaftii iyo go'aamadii aad qaadatay way naftaada ku dhiirigelisa. waayo haddaan aad qaadatid go'aankii aad naftaada ku dabiqin kuna dhiirigelisana xasuusin waad ilaawaysaa. halkaas ayuu ku dayacmayaa waqtigii iyo go'aankii iyo xilligii aad qaadatay go'aanka ku qaadanaysa. ta lixaad waxay noqonaysaa inaad xisaabisid noloshaada habeenkii oo kale. maalintii markaad wax qabatay habeenkii markaad sii seexanaysid inaad xisaabisid ay noqonaysaa. waayo waxaad garanaysaa waxyaabaha ku kala soo baxaya maxaad qabatay maxaadan qaban, maxaa kaa dhimanaya maxaad samaysay ayaa kuu soo kala baxaya. ta toddobaad waa inaad mar walba tala saarataa markaad hadafkaagii iyo yoolka aad u socotay aad doonayso inaad samaysid. waa inaad Allah u tala saarataa. toddobadaa tallaabo haddii aad samaysid insha Allah waxaa lagu rajaynayaa inaad noqotid qof ka midho dhaliya ahdaafta iyo ujeeddada uu leeyahay uu doonayo inuu adduunkan kaga tago. aad iyo aad u mahadsantihiin.